Asalaamu calaykum asxaabta mar kale kusoo dhawaada Sacdiyo cunto karis. Maanta insha Allah waxaan sameyn doonaa misir oo laga sameeyay macnaa suugo yar oo misir laga sameeyay insha Allah. Marka misirta ayaa dhaqa doonaa. Marka hal koob oo misir ayaa isticmaala, koobkana noocaas ayaa isticmaalay. Marka hal koob misir ayaa si fiican u dhaqana insha Allah. Marka misirtan xoogaa waa wasaq, marka si fiican iska dhaqdid waaye. Marka aniga hadirtaan 4 jeer camal ilaa 5 jeer biyo ku dhaqaa, biyo oo dhexdhexaad ah oona kululeynin oona qabow ahaynin. Marka insha Allah adina waxaa dhaqdaa ilaa ay nadiif kaaga naqanayso. Aniga 5 jeer camal markaa dhaqay ay nadiif ii noqotay. Marka digsi ayaa soo qabsaday, marka misirtii aa soo dhaqday ayaa ku shubtay. Meelna biyo ayaa ku sii kululeystay, jalmada biyo ku sii kululeysan kartaa. Marka misirtii ii dhaqneede ay digsi ku soo shubtay, kadibna biyaha kulul ayaa ku soo dul shubi doonaa insha Allah. Waa kaasa biyihii oo ii kululaay ayaa ku soo dul shubay. Biyahana qiyaas ayaa ugu shuban kartaa. Marka hal koob oo maaragtay oo misir ah isticmaalay, biyahana saa u jeedin intaas camal ka soo dul mariyay. Wax cabir gooni maana u isticmaalin, laakiin hadaa rabtid inaad cabirtid biyaha hal koob dheer iyo wax yar oo biyo ah way kugu filan tahay. Kadibna wax yar oo cusbo ayaa ku darsaday. Cusbada waa ka dhaafan kartaa hadeertaan hadaad rabin. Hadhow marka suugada aad dalacaysid ayaa maraq digaag fiican ku shuba kartaa. Marka intaas waxaa sameynaa intuu digsi ka soo karkaraayo, micnaha intuu biyaha markay soo karkaraan daboolka waa ka daji doonaa. 10 daqiiqana waa kari doonaa. Marka misirta dhan waxaan kariyay 10 daqiiqo. Biyahana waa ka miiray. Marka baastamirka caadiga ayaa biyaha uga miiraa. Saa u jeedin baastamir hadda meesha ii yaalo. Misirtii aa soo kariyay 10 daqiiqo camal ayaa ku soo shubtay. 10 daqiiqo ka yar xitaa way ku karsami kartaa. Marka 5 ilaa 10 daqiiqo u qabso la socona insha Allah iyo saaid kaaga burburin. Marka digsi kale ayaa soo qabsaday, waxaa ku shubtay saliid cadi ayaa ku soo shubtay. Saliid saytuunka daartid waa isticmaali kartaa. Marka wax yar oo saliid cadi ayaa ku soo shubtay, kadibna jab basal aa soo jarjartay, si yariis u soo jarjaray ayaa ku soo shubay. Kadibna maxaa lahaay sanjabiil iyo tuun, hal xabo tuun iyo jab sanjabiil aa isku soo tumayna waa ku soo darsaday. wax yar isku walaaqi doona insha Allah. Kadibna waxyaalaha carfinta dhan ayaa ku shubi doonaa. Hadeertaan halkaas xabo yaanyo waa ku soo shubtay. Halka xabo yaanyo ka badan waa isticmaali kartaa hadaa rabtid. Yaanyadan waxaa sameyn kartaa qolofka kore waa ka fiiqan kartaa. Waa hadaa rabtid hadii kaleetana qolofkeeda ayaa kula kari kartaa. Kadibna hal qaado, macnaa qaadada yariista afkeeda horeeto oo maraq digaag ku soo shubtay. Hadaa cusbo ku dari lahayn misirta hal qaado buuxda ku darsan lahaa maraq digaaga, maadaama cusbo ku kariyay misirta qaadada afkeeda horeeto lay ku shubtay. Kadib hal qaado oo xabaasha ku shubay iyo qaadada iyo wax yar oo filfil ayaa ku soo shubtay, filfisha shiidan oo midowda ah. Marka inta si fiican isku walaaqay kadib waxaa ku soo darsaday huruud sidoo kale qaadada yarta afkeeda hore leh waaye ma buuxdo qaadada. Marka intaas hadana insha Allah isku walaaqi doonaa. Kadibna wax yar biyo ku shubay. Biyahaas waxaa ugu talagalay si ay maaragtay xawaashiyaasha iyo yaanyada isku karsamaan. Marka yaanyadan markay xoogaa yar hurtaba karsanto, macnaha daboolka markaa saartid wax yar huraysa, kadibna yaanyada waa jijibi kartaa. Marka ana hadeertaan waa kaasa yaanyadii waa jijibiyay. Markii daboolka saaray ka dajiyay yaanyada xoogaa yar way jilacday. Hal xabo yaanyo maadaama ay aheeday waqti badan ma qaadanin. Marka kadib waxaa soo qabsaday digsigii oo igu jirtay misirtii aan kariyay aana biyaha ka miiray. Marka meesha digsigii kala iskula soo shubay wax dhan si fiican isku dhexgelina carfinta iyo macnaha xawaashiyaasha yaanyada iyo misirtii si fiican isku dhexgelina. Marka kadib waxaa ku shubi doonaa insha Allah caanaha oo cream oo maaragtay creamka cuntada loogu talagalay oo lagu kariyo.
marka intaas qiyaastaada ku shuban kartaa. Hadaa rabtid waa ku badsan kartaa caanaha, hadaa rabtid waa ku yareyn kartaa. Aniga hadirtaan ahaan 4 qaado oo camal mid oo cuntada lagu cuno ayaa ku darsaday iyo wax yar biyo ku darsanaa insha Allah. Si hadhowti maaragtay suugo yar igu naqato oo micnaha xawaa yar igu adkaato oo lagu wax walba ugu cuni kartid micnaha rooti mase sawaayad mase wax walbo aartida ku cuni kartaa. Laakiin hadaa biyo ka dhigtid maraq camal ay ka naqanaysaa, marka xawaa yar biyaha ka badinin. marka dartaan caanihi wax yar kula kari doonaa misirta, kadibna waa diyaarba misirteeda. Daboola kula saari doonaa ilaa 5 daqiiqo camal, kadibna waa diyaar. Hadaa rabtidna waxaa sameysan kartaa basbaas waa ku darsan kartaa, basbaas cagaarna waa ku darsan kartaa, basbaas gaduudna waa ku darsan kartaa saa jeceshahay. Hadda waa kaasa qoyaan badan ma lahan oo qaleel ay naqatay, qaleel saaidna ma naqanin, xoogaa yar way qoyantaa laakiin biyo badanna ma ahan. marka hadirtaan diyaar waayo, waxaa sameynaa dabka ka daminaa, dab gaaban uu karsamay ewelka hore 2 lay ku karinaayay, marka dabkiya ka damiyay. marka maasha Allah sidaas ay u fududahay. asxaabta waxaan rajeynaa inaad ka hesheen videoga. hadaa ka hesheen insha Allah like-ta iga hilmaamina, subscribe-kan sidoo kale ha iga hilmaamin hadaa channel-ka ku cusub tahay. hadaa hore nala joogtayna aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. insha Allah videoga xigana waa is arki doonaa. Assalaamu asxaabta Instagram-na waa leeyahay oo Saacadiya Cunto Karis, meesha sawirada waa soo geliyaa iyo cuntada insha Allah meeshan waa igala socon kartiin. ha hilmaamin meesha inaa follow iga soo dhahdeen. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.